runtii waqti baan isla soo maray inkasta oon kala durugsanayn foolka foolna aanan maanta ka hor isu arag taqriiban in muddo ah waxaan marayn 4 sanawaad taqriiban laakiin ittisaal waxaa naga dhaxeeyay wasiiq ah oo telefoon ah oo arrintan ku saabsan takwiinul mar'a saaliha inta ana u gudbin horta waxaan dhihi lahaa khayr allah idisiiye dadka muslimiinta waqtigan markii xaflad la yiraahdo hal la yimaado ama munaasabad la yiraahdo waqtiga kuma yimaadaan bal waqtiga sidan ha loo dhaamo waxaad arki ana hadda jaamacad baan joogaa jaamacadaas maadooyinka qaarkood ilaa 600 arday baa ii soo fadhiisan galaaska caruurta aan muslimiinta ahayn yaa sufuufta hore oo dhan wada qaadan markii lecture-ku ama si dhamaan haya ama dhexda uu marahayo yaad arka muslimiintii oo soo galahayaan waa shay caadi noo noqday arrinta bal si loo bedeli lahaa hal laga shaqeeyo insha Allah ta'ala waqtiga waxa laga yaabaa marka qaarkiin aad dhahdaan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab gadaal baabad ka timide xaajiba maxaa kugu dhacay markhaati baan haystaa haddii aan khaldanayn waxaan u malayn ruuxii u horeeya oo yimaadaan ahaa ustaada Fartuuna iyo gabar kale aan ugu imid hoolkan meel sawti la dhahan ka soo ordahayay marka waxaan u malayn sawti iyo isliina time difference wax la dhaho waqtiga isku saacad ma aha hal saac bay inoo dhaxeeyaan u malayn sawti iyo isli saddexda la soo qoray saddexdii baan soo istaagay markaas la baasho afartii iyo barkay bilaaban doontaa horta taa u qaata mitin baan lahaa bacda al-asr kiiban culumaan ku jiray mitin kiiban qolka ku orday haddana orod baan idinku imid inaan dhidihayana waaba arkaysaan khayr Allah idin siiyo walaalayaal wax yar oo qodobo aban ka taaban mawduucan ay gabdhahan ku soo fikireen horta marka u hore inaan fahamnaa fiican diinta islaamka inta ayna imanin xaaladda mujtamaca muslimka noqon doona sidoo u ekaa al-asr al-jahili baa leeyahay zamankii jahiliyada jaahili wuxuu ku noqday oo qaybihiisa kamid ah dhanka aqeedada jaahiliya lagu jiray cibaadada jaahiliya lagu jiray muaamalaadka jaahiliya lagu jiray akhlaaqda jaahiliya lagu jiray akhlaaqda bay ugu roonayeen dadka jaahiliyada waxa kamid ah jaahiliyada nisful mujtamac ba muaddal aha mujtamac nuski raggi iyo haweenku ma tirsanayn dadka hadda inoogu faana inay adduunka xadaarada hogaaminayaan oo diinta islaamku ay xadaarada gaarsiin doonto waa Yurub waqtiga Nabi Muhammad Ali sallallahu alayhi wasallam soo saarahayo falaasifadooda ama dadka filosofiinta falsafada ku xeel dheer waxay ka hadli jireen haweenka nafta ku jirta ma nafta ragga oo kala mise way ka duwan tahay dooda muddo ka socotay Yurub waa jaahiliyadii hadda waqtigii jaziira carabi jaahiliyada ka jirtay markaasay waxay ku biyo shubatay doodoodii nafta haweenka ku jirta waa midda eeyda iyo xayawaanaadka ku jirta hadda waa tabinka eeyda loo soo qaatay asri adduunka dhan Hindiya Shiina Abyssinia Masar Furus Romania الروم adduunka oo dhan uu jaahiliye ku jiro awwal jaahiliye oo mujtamacyada oo dhan wada qabsatay waxay dowrul mar'a haweenku mujtamaca qaybta ay ka qaadan karaan yaa laga inkaray markaas waxa lagu soo qaaday ruuxda eeyda ku jirto kala ku jirta markaas waliba waxay ka doodeen ninku hadduu dilo qof haweenay ah maxaa lagu xukumi waxa la yiri wixii lagu xukumi lahaa hadduu eey dilo hal lagu xukumo eeyga ruuxa iskala waa Yurub hadda waqtiga Yurub waxa hogaamin jiray dadka hadda Greek la dhaho Greek yaa hogaamin jiray xagga cilmiga iyo nuurka iyo iftiinba u ahaa Yurub ta kale Ingiriis iyo Faransiis iyo Jarmal maanta lagu sheegi waaga iyaga xayawaanaad iska socdo kale ahaayeen dhaqanka Greek oo roonaaba waxay leeyihiin haddii aad disho eey magdhowga aad siin eeyga ruuxi iska lahaa yaa dili haddii haweenaydu ay reer leedahayna ninkeeda la siin magdhowga eeyga oo kale haddii ayna reer lahayna aabaheed baa la siin islaamka yimid
markaasa waxa maanta yani sawirka nala siiyay sidoo u daba gadisan yahay markaas islaamku wuxuu noo keenay oo quraanka iyo xadiiska nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam sheegay xadiiska uu sheekh markan soo galay uu sheegay النساء شقائق الرجال إن أي هوانكو يهين رجع دقودي أيهين جاحودي أيهين مجتمع وبهيه اللباديبا حداد دينا مرتي حوجسو دينا أتكليدتو مجتمع ببهي سدبا حق إسلام كؤوسي هوانكا وكي كان حضارة إسلامية إني صوب حضر محل يجري إسلام كؤوسو صاري هوانكو دحالكا إني رجي لقيب صنهيان عرب فرس هندي شينة غريك أبيسينيا مصر وحضارة ذي وقت جري مال هوان وحل سينجري ما أنت لو دي إسلام كود المية هوانكو دحال وحلا جم سينن أفر إلى باتن حالات أو دحالة أو هوان يرك أي واحد ولا دحلان لبي يطبن هوان كابت صدا واللبي يطبن حالة هذا دقيسته تقريبا تضبح حالاتنا ويسنان هيان شنت كلنا رجع كبتسن مركزات شنت رجع بهذا يروح بتشوق قبتيو قالوا أدم بسقطت هوان كوي دلميهن ومسؤوليات كل صاري يا أنت اللي قاضي ونكر نفقد اللي صاري وليس صاري يا 5 حالات رجل لو بديه لبي يطبن حالنا أي كبدن تاعي نبى ما أنت دنتي وحكتك قبل سي أبيه وحقادني أن سدس بالسين مركزات قبل اللي ليه نص بيقادن حوله لبه دي هنا صدح مولود لبه قادن هيان ونن وأبيه أوج يجوا أبوه أمرت أبوه وها تسمع عنها يعني إذا كسر قادها مثال أهان حق هنتذا حضارة الدون كالله وقال هوانكم إنه هنتيان مجرين إلا إسلامكم يمادوا ولا هذا ملكية ده هنتذا هذا أما دحالها كسر قشة أما مهر وآتوا النساء صدقاتهن مهرها كسر قشة أما هبها كسر قشة هي صدقة سيدا رجوا أم الكن بأم الكن هيان علمه طلب العلم فريضة على كل مسلم بالجري ومسلمة وضعيفة الله صعدا أتين عنه قطعي على كل مسلم هدي الله والله بذيبه ومسلم نمكي مارتي دمركي الرقيب واسكمد لا بذيبه اسقسمي علمك أرتدين اقرأ باسم ربك هوينكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حدهن يا رسول الله غلبنا عليك الرجال رقبا نجاك قاتي فاجعل لنا يوما من نفسك ما لنا نصيب علمك أنك قاضنا ما أنت خميس أبو يوسف النساء قيبت مسجدك هوينكو كنت كذا هل كاسوا فريستا مركاسي سووا بحسمين خميس قصر النبي عليه الصلاة والسلام علم مسنجري لما أقول عرب يعجم هوين وحبران هيا أو سيدا رجع وحلابرو حرام بيبقى هيدا هل تمر أو فرت تقاني سيدا الله قرو ما ينجرن نبي محمد عليه الصلاة والسلام كل صار صاري كل كودنتينا تكس إيه سيدا وحلا قرو إيه سيدا الله آخرية تقانا يكتري عباداتك أركانتي عامك صوم صلاة حج اسكسيب الواجب لو وضي علي كلي أماشى الطبيعة ذو يكون كل دوانتاي أمبو إسلامكو أو كلا صاعي تانا الطبيعة ذي بالرأسنتاي وتهدى هوانك قلباتك هذا حسب على حركة سيد تكوين المرأة صالحة لكن أنا هين دين الإسلام كل سنين أو مريكان كسب عليه بجرته أو إليهين ونطنيه هدان في قلباتنا هاي أن قلنا family values غير هلا هوانكو مارتي قريها يتربية عروتها أوبتان هوانكن هذا ما أنت دان تدها ومالها قاركوا بالوضع يحتوري حضارة الإسلام كوحي تكتي إن هوانكي علمي اللي قاعدين هاي بروفيسور ما أنت ده مقالة نيروبي أون جوجنو ما تدعي كرتها هدا نذي ويدين إيه اللي جرى هذا مسألة ده نيروبي بقى علماء أي كدوتي شيخ أمل يا شيخ شبلي يا شيخ هبل يا شيخ هبل طبعا شيخ وطبعا كأدمانته وجوا وين علماء ده يا مسألة ده اسكو خلافي بل أستاذ فرتون هالله درو هكذا صارت ما كوفي كريسان إذا كم كوفي كريسان أيضا ما كوفي كرينين لفت هذا كوفي كريسان
شيخ أملي شيخ شبلي بعد كلا صار دونتها مسائل شرعية كم فكر يسوع لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل كود انتي وحد عضي إن أبو بكر عمر علي عثمان صحابة وين طلحة مسائل انت اللي اسكو قبصده اللي هذا عايشة سوي دي هكذا صارت صحابة وين كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلي هلا كلا صاروا حضارة الإسلام كو حيكون استاكتي رق يهوان علمك عباداتك معاملاتك أمور اجتماعية ماشى أن كلئة اللي محرم بيوبهنت هاي طبيعة ذي ويان ونوصة ذي ويا ويا إنكر هيا شن ساعة بينه ويل كاد يجسور جدا هذا أبا هذا إنه تكسي كقاطع هل كان إلى سولسي وقادم وقلي قبل كل قد مركي تاي يا الراعي بيكون وانا قرتين انت أبو إسلام كوكو كلا صاعي لكن انت كلا أردن كل ولا بسي حضارة إسلام أو تضبط بقول أو سنة الدون كحكومتي أو يوروب توسيسي يوروب فرنسيس قدال كلا ده كل كي إسبان مسلمين تو أي قالين وحلا يروحوا لح بلاد مكة بيسنجرون قف فرنسيس كا برافون كأوفي عن يوروب هذا فرنسيس كا القصة مياه إلى يومنا هذا يوروب وحيد لهم فرنسيسكو وضد أورها يبيد لهم هذا وضد هذا ما أنت فرنسيس هذا الأورها لو ذي استاجه هيو وحكك يعني برافون هذا وفي عن ما أنت إنه سميان باللي أركز لو قريه وأنا هذا ما هو واحد مسلمين تكون عايزين هيان يوروبيان كقولي كتابة يكون القرآن تهاي مسلمين تبغى حالة وبالله بي وحلا قوي قبيستانه إيه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين طهارة وحلا لها جرتوه قبيس باجرتوه ويسا جرتوه هل كاسي يوروب انت كان نقدين اسبين ارديدو دي يمادين دمشق يمادين بغداد يمادين يدب النقدين او كاسي اللي يجري مرتين waxaa jira xitaa meelo public xamaam la dhigi jiray carabta waqtigaas oo public ah oo lagu qabaysto ruux haduu daalo dhido gurigiisa uu ka cayninba wixii baa laga bilaabay macnaheedu waxa ka wada xadaara adduunka 700 oo sano hogaaminaysay oo kitaabada muslimiintu qoreen lagu akhriyahay oo qaar ay haween qoreen yaa soo baxay هل مثال بندين شيء إمام بخاري رحمه الله معلمين وحساب بري أو صحيح البخاري إمام يدا أقوها بقول إيه وحجابها وين علوم ذيسي إمام بخاري إمام شافعي إلا وعلم جمال صار ويماده هوين كليها وحساب بري علوم الإسلام كانت تاسع أقو بدنيد متكس ابن حزم الظاهري باكمده وحلودي ابن حزم الظاهري إلا هو قرآن كحفظ كيسي تفسير يا فقه يا علوم الآلة يا قدام ما يو ركبوا وحبك ما برانين علوم الإسلام كهرة وحي هذا مجتمع مسلم كوحان جري قف كمسلم كأ سيد هذا إمام شافعي ضدك والله وقت جاها هو يدي بصابر علمك حدي هو يأن له إن علم تقارننا تدرس كده بري هبلي علمه عرورت على وحال إلى برتان لما جينجر دوكسي هذا ما أنت وضع الدكسي وحاون نبأ أبدا إن الغب الله عرورت الدكسي هوين بقرآن كصاحب في السنجر عرورته وليش عتقولك إلى تمنجر إيو اللي حجرت هذا وجر بيكون من جرا قرآنك وقت أنا هوين كذب حجابنا إنه يقرآنك كل ما ينقع عمه هذا إيو برا هيان ما أنت الله ما هي أرنتاس أنا جو حنسوا أرنلي علوم بدن الإسلام كوقت هذا ضمباء ووقت السنوجو وين مجال هذا ما أنت علميان أي كلا ساري إذن كنا ما آمن سنيدن يدنا ما بآمن سنبا تاريخ الإسلام كصحابيات كتابعيات إن مرت تابعيات تابعوا الأتباع وين كجري إلى عصور متأخرة أو ألفية ذي هورة كن كسنة أو رسالة أيضا ماتوا إسلام كوحة أو أهنجري عادة أو أهنجري رجوا مسائش يسقط قبصدان إلا ده مجالاً أعلم النساء وفلانة هبلا أو علم بدن هبلها الله نقضه هرت الدور كاس أو أن كبحنا ماشي كبحي إلا صون لا يقول لها تكوين المرأة الصالحة أول يراهدو مرتين أن دب صون علينا أو صحوة الإسلام ده كان سوى البراروي ده كان ما أنت سوى البراروي صحوة قيبتي هوانكم وين مقنتها هلا ياشو إني مقنتها هالشيء بيجي كل شيء إمس الدكسي بكفر حافظ الإسلام الله أعلم
laakiin waxaan u malayn haddii guri kasta way ka furan yihiin hadda dugsiyada in la tiriyo kun kaba inaynan ka yaraanaynin imise gabdho wadaan dugsiyada waxaa laga yaabaa boqolkiiba hal boqolkii dugsiba hal haddii kale boqolkiiba laba wax aan la sheegi karin weeye inxitaadul mar'a baa haweenka inay liitaan hooseeyaan tacliim islaam ku hooseeyaan yay ku tusinaysaa arrintaa haba sheegin iskoollo haba sheegin maaragtay madarasooyin islaami oo qur-aan keli aan taxfiid ahayn ay la socdaan fiqi iyo xadiid iyo siiri iyo tafsiir iyo la socdaan imise haween baa maanta saxiixu bukhaari akhrin kara magaalada nairobi ma jiraan ma dhihi kara laakiin waa jir yihiin ragga markii loo tiriyo waxaa laga yaabaa 50 nin kolkaas hesho hal dumar ah inay u dhiganto 50ka asalkuna muxuu ahaa in haweenku ay inta raggu qaban karaan dhinaca diintaas iyo tacliinta haweenkan sababtoo iqra bismi rabbika isku siba loola khitaabay iqra haweenkiina waa lala hadlay raggiina waa lala hadlay in la soo nooleeyay thaqaafada la dhaho thaqaafatu iqra oo haweenkii ay diinta bartaan oo konton nino saxiixu bukhaari akhriyi karta markii la helo konton saxiixu bukhaari akhriyo haweena la helo oo fatwada khaas ahaan fataawada ku saabsan haweenka ayna haweenkaba soo dhaafin allahumma illa mas'ala adag oo u baahan moolkeedii aan sheegay mooyaane inta kale maanta waxay noqotay inay haweenka la sheekh xinaa iga go'i waaye cididan wax marsaday weysada ma iga ansixi inta waxaa la rabay inayna soo dhaafin haweenkaba intaa yarta horta iyadu inay taqaanaa la rabay sheekh maalin ramadaan ah yaa maaragtay 5 daqiiqo adinkii oo ka dhiman tahay 5 daqiiqo yay caadi igu dhacday sonka ma ii jiraa maba haba in sheekhya loo keeno ayadu inay taqaana bay ahayd waa daruuriyaadkiiba ka mid tahay hadday ayada soo dhaaftana tu kale oo caalimada oo sheekhada ay weydiisaba sheekh isliibaan dhex maray oo dhiiqaab marada hoos iga taabatay ma ku tukan karaa marada masaa-isha waxaa la rabaa haweenku in ay caalimaad dhexdooda yeeshaan iskuna kalsoonaadaan dhibka hadda maanta jira xataa haweenku iskuma kalsoona ustaada fartuuna waxbay garanaysaa haddii la yihahdo may mas'alada sheekhyada noo soo weydii baa la dhihi sheekhyada noo soo weydii maba lagu kalsoona hadday hadda umuliso soo barato oo ay gynecologist noqoto haweenku kuma kalsoona inay ka umulin karto rag baa la raadsan doctor hebel oo nin ah idii ya maartay ku xidhmi soo iga umuliyo 5 gabdhood oo umuliso abaan hadda xaafadeeda joogaan ma kuma kalsoonaan in way wax qaban karaan walidaalka waxa la dhahaa haweenka kuma kalsoonaba cilmigooda iyo wax maarifadooda ay la yimaadaan kuma kalsoona inta baan maanta rabay inaan qolka idinku beersado isku kalsoonaada waxna isku darsada gabadha waxyaalaha ugu badan oo aan rabo maanta in aan meesha ka sheego oo ka dacwoonaysa inta telefoonka aan ku wada hadlaynay waxay ahayd dhaqaalaha waqaf baan wajaar ka dhisnay alxamdulillaah waqafkaasan anigu u taagnaa chairmanka ahaa waan ku rafaadnay 5 sano yaa muslimiinta ku hayna qaarkiina idaacadda Star FM ka maqasheen baa laga yaabaa qaarkiina inaad soo dirteen baa laga yaabaa haddii ana hadda la weydiiyo waxaan dhihi lacag haween bay ku dambaysaa ayadana waan u sheegay ustaada fartuun inta yarta dhagta ii raari ahiga mashquulin lacag haween bay ku dambaysaa raggu waxay hayaana haweenka u taliya waxay iyagu haystaana iyaga u taliya waxay raggu hayaana iyaga u taliya waayo oo dacmiga u badan oo isoo gali jiray oo waqafka lagu bixin jiray haween bay ahaayeen waa marka anigu aan aaminay ninkii aan gabadh dhalin wuu gablamay fatwa la dhahaban u soo saarayba ninkii aan gabadh dhalin wuu gablamay maanta oo dhan gabadh baa wax soo diraysa sheekhow lacagta iga qabo MP-san ku soo diray pay bill-kii baan ku diray aabbahay baan u niyooday hooyaday ninku waa gangistar hadduu lacag xitaa soo diro wuxuu ku dhihi sheekh sadaqadaas soo ducee bal ruux ku dhihi aabbahay iyo hooyaday iigu ducee awowgay iyo ayeeday iigu ducee eedada iyo abtigay iyo habareertay iyo maarta adeerkay iigu ducee haween baa la hayaa bal haween baa ugu badan waxa ku dhihi macallinkayga iigu ducee macallinkii u horeeyay quraanka i baray yaan sadaqada u niyeystay iigu ducee
kolkay 10 haween lacag soo diraan yaa laga yaabaa hal nin inuu lacag ku soo diro ustaad fartuun lacagta beeshad ka raadinaysa kaama jirto dhinacan ha soo dhowrin dhinacan ha feerin xagga feeri haweenku hadday u istaagaan diinta u istaagaan waa dadka meel kasta meelaha aan taga magaalooyinka aan ku wareego Djibouti waan tagay lacag baan ka ururiyay South Africa ka soo ururiyay Kenya magaalo kastaan ka ururiyay meelo kale oo ma kicin wax dahab iyo dhiga haween baan arkay ayaga oo lacag haynin kuwa idhaha kuwa aan dhaho hebla salaamu calaykum zawjkaagu waa nin lacag leh jannada u kaxeeya maar si fiican ula hadal wax ka soo qaad oo anigu intaan wax ka waayay kolkay la hadashay milyan ama 500 kun maartay aan ka soo qaaday tukas cad ku dhahdaa wadaadkaaga ka soo qaado ilmaha u ducee khayrka wax oga gacan furan haweenka ma jiraan way hurdaana kolkay soo toosaana wax ka fiican ma laha